Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan waa idin salaamo asxaabta meel walbo dunida dacaladeeda ka joogtaan waxaan rajeynaa inaad ku caafimaad qabtaan maasha allah asxaabi kusoo dhawaada ayaan leeyahay mar kale janalkayga asxaabay maanta waxaan ii wadaa cunto caafimaad leh cuntooyinka caafimaad leh oo sameysto ayaa rabaa inaan ila sheegareeyo soo waa kana maanta waxaan sameynaya fiishkan iyo qudaartan ayaan sameeyay ama kalluunkan saa u taqaano soo maasha allah si caafimaad leh ayaan u sameeyay waxaan rajeynaa inaad ka faa'iidi doontaan ugu horaantii haddaan nagu cusub tahay fadlan subscribe inoo dheh haddii aad ka heshay videoga like comment and share maasha allah asxaabi hadda saa arkaysaan inta waxaan ku haystaa kalluun ayaan ku haystaa maasha allah waan soo nadiifiyay kalluunka kadib waxaan sameynayaa kalluunka waan jajarayaa maasha allah sidaas ayaan u jajarayaa xabadaas ayaan iska saaraya saxanka kadib xabadan ayaan jajarayaa maasha allah sidaas ayaan u jajarayaa first of all maasha allah asxaabi sidaa doonta ayaa u jajaran kartaa laakiin sidaas ayaan ka rabaa inaan ka dhigto soo maasha allah waxaan ku dhahay kalluunka nooca doonta ayaa isticmaali kartaa ani laakiin noocan ayaa isticmaalaya maasha allah markaas asxaabi sidaas ayaan u jajarayaa kulli sidaas ayaan soo jajarayaa maasha allah waxaan ku dhahay markaas sidaan aan u sameynaya maanta u sameynay sida waqti badan ma kaa qaadanayo waa waqti aad u yar maasha allah asxaabi hadda waa kaas sidaas ayaan u jajarayaa kulli maasha allah qaybtan waxaan saaray saxanka ayaan iska saaray qaybtaan jajaray qaybta kale waxaan ku dhahay xabadaas kale waan soo qaadanaya laba xabo aad u waaweyn waaye kalluunkaan sameynaya maanta maasha allah waa kaas sidaas ayaan u jajarayaa kulli maasha allah markaan sidaas aan u soo jajaro waxyaabihii kale aan ku darsan lahay xawaajiyaashii iyo waxyaabihii kale ayaa isla arkaynaa kalluunkan aad ayuu u fudud yahay qof walba ayaa sameysan karo asxaabta iskaabulada way sameysan karaan waqti uma baahno maasha allah hadda saa arkaysaan kalluunka markaan soo jajaray waxaan soo qaatay weelkaas ayaan soo qaatay waxaan rabaa xawaajiyaasha inaan inta kusoo shubto ayaa rabaa maasha allah asxaabi hadda saa arkaysaan halkan waxaan ku haystaa xawaajiyaasha inta ay yaalaan saa arkaysaan waxaan isticmaalayaa fish masala waaye ayaan kusoo shubayaa hal qaando waxaan kusoo darayaa oo kale babriga barbarooniga shiidan ayaan ku darsanayaa saa arkaysaan waxaa kaloon kusoo darayaa filfil madow shiidan oo ayaan kusoo darsanayaa wax yar ayadane waxaa kaloon kusoo darayaa garam masala ayaan kusoo daraa filfisha markaan ku daro kadib garam masala ayaa halkaas ku haystaa garam masalagaas ayaan kusoo darayaa maasha allah asxaabay intaas markaan kusoo daro kadib waxaan kusoo darsanaya oo kale xawaajiyaasha noocyada doonta ayaa isticmaali kartaa laakiin ani intaan ayaan isticmaalaya wax yar oo huruud oo kale ayaan kusoo daray huruud ayaan ku darsaday hadda intaas arkaysan waa sanjabiishan daraadaan sameysanayay oo fridge-ka aan gashtay ayaan wax yar uga darsanaya iyadana maasha allah halkan hadda waxaa kaloon ku haystaa waa kabsar caleen iyo tuun aan isku shiido oo iyo waxyaabo kale ku dardarsado fridge-ka iigu jirto waaye waa kaasaa sidaas waa meeshaas ayaan ka isticmaalaa ani kabsar caleenta sidaan ayaan yeelaa markaan soo gato badanaa soo marka maasha allah waa kaas kabsar caleentaas ayaan ku darsaday iyo tuun isku shiidan waaye iyo waxyaabo kale ku dardaray marka waxaa kale kusoo daray olive oil ayaan ku darsanaya iyadana wax yar maasha allah inta waxaan ku haystaa jab oo liin ayaan ku haystaa liintaas ayaan ku miirayaa jab liintaas ayaan ku miirayaa maasha allah waxyaaba aadna jecleen waa iska dayn kartaa waxaa jeceshahay ayaa ku bedelan kartaa maasha allah marka waa kaasa liintaas ayaan kusoo miirayaa saa arkaysaan maasha allah markaan liinta kusoo miira kadib waxaan sameynayaa si fiican ayaa rabaa inaan iskugu qaso waxaan ku dhaha waxyaabaha dhan ay si fiican isugu kay galaan insha allah qaandada marka aan soo qaato saa arkaysaan kadib dhexda ayaan iska gelinayaa si fiican intaana jikin fishka aanan marin soo waa kanaa maasha allah maasha allah asxaab hadda waa kaasa diyaar waaye si fiican ayaan iskugu soo qasa kadib waxaan soo qaadanayaa kalluunkii maasha allah asxaabay waa kana kalluunkii ayaan soo qaatay kadibna dusha ayaan uga soo shubayaa maasha allah kadibna si fiican ayaan u marinayaa insha allah
weli baaquliga ayay igu xireen xawaajiyaasha laakiin waxaan ku dhahay fast kistaan ayaan marinayaa insha Allah kadibna inta igu harta ayaan kasoo shubayaa maasha Allah kana sa arkaysaan hadda waxaan kusoo darsanayaa cusbo oo wax yar ayaan kusoo darsanayaa cusbo badan ma ku daraayo cusbada wax yar ayaan kusoo darsaday adi dhanaanka adiga qiyaastaada adi waaye disaa jecesha haddii aad dhanaan badan laakiin markaad aad cunto caafimaad aad samaynaysid cusbo badan maba la isticmaalo soo aniga waxaan isticmaalaa cusbo aad u yar ayaan ku darayaa cusbo badan ma jecli maasha Allah caafimaadna maba ahaanba cusbada badan mar walba waa inaa iska yaraysid cusbada maasha Allah marka waa kaasaa sidaas ayaan markaan usoo mariyay waxaan sameynayaa birtan ayaan dabka soo saartay wax yar oo olive oil ayaan kusoo shubay kadibna saa arkaysaan birta ayaan soo saarayaa maasha Allah markana kalluunka birta markay wax yar ay soo kululaato ayaan soo saarayaa birtana sida ayaan ugu sameynayaa ugu dubayaa saliid badanna ma ku shubaayo just waxaan ku dhaha birta wax yar lee mariyay saa arkaysaan olive oil ayaana isticmaalay saliid kale ma isticmaalin marka waa kaasa sidaas ayaan usoo saaraya kulli maasha Allah maasha Allah asxaabada waa kaasa kulli sidaas markaan usoo saara kadib waxaan ugu kaadinayaa cabaar dabka medium ayaan u geynayaa zaid ma ugu dheereynayo soo waxaan rabaa dhinacaas markuu waxaan ku dhahay goldi iga soo dhaqda dahabi ayaan dhinaca kale haddana u gedinaya hadda saa arkaysaan dhinacaas waxaan ku dhahay dhinaca kale ayaan u gedinaya kulli sidaas ayaan usoo wada gedinaya insha Allah maasha Allah asxaabeen waxaan ku dhasaan markaa u samaynaysa kalluunka waxaan ku dhahay aad ayuu u fudud yahay waqti badanna ma kaaga baahno soo waa kaasaa sidaas ayaan uga gedinaya maasha Allah asxaabey waa kaasaa sidaas ayaan uga gedina xoogay baraf yar ayuu lahay soo markan waxaa sii fiican baraf dhan uuna qabin kalluunka fridge oo kasoo baxay waxaan ku dhahay xoogay baraf ayuu lahay marka waqti dheer inaa soo baxsan kartaa banaanka dhigan kartaa soo barafka si fiican uu kaaga dhaco marka maasha Allah marka waa kaasaa asxaabey kulli sidaas ayaan soo gedinaya maasha Allah dhinaca kale ayaa rabaa haddana inuu iga bislaado insha Allah oo dahabi iga soo noqdo markaas waan ka bixinaynaa maasha Allah asxaabada waa kana saa arkaysaan kalluunkeena diyaar ayuu soo noqdo waaya maasha Allah hadda waa kana diyaar waan ka saaraynaa maasha Allah waa kaasaa marka qayb ayaan kusoo shubay kalluunka dhan kuma aanan soo wada shubin soo waa kaasaa kiskis ayaan u sameeyay maasha Allah hadda waa kana kalluunkeena sidaas uu diyaar ku yahay halkan waxaan ku haystaa qudaar maasha Allah qudaartan ayaan rabaa inaan kariyo soo isla birta aan kalluunka ku kariyay ayaan haddana kusoo shubaa qudaartan soo waa kana intaas ayaan inta ku haystaa waa carrot french beans iyo broccoli intaas ayaan ku haystaa iyo waxaa waaye basasha oo cagaaran oo cagaarta ayaan soo jarjaray ayaan ku darsaday maasha Allah kistaas ayaan sameynayaa soo waxaan ku dhahay waxba saliid iyo waxba ma ku daraayo just waxaan ku dhahay biyo ayaan kusoo darsanayaa soo xooga yar inay ii karsanta ayaa rabaa sometimes waxaan sameeyaa waa boil gareeyaa ala asxaabada waa kaasa biyahaas yar ayaan kusoo daray marka intaas biyo ayaan ku karinaya waxba kale kuma daraayo soo waqti badan ma u baahna qudaartan inaa karis aad u karisid marka waa kaasa sidaas ayaan wax yar dabka ugu haynayaa intay intaas ay kasoo gursato ayaan sugayaa hadda waxaan kusoo darayaa wax yar oo cusbe waxba kale kuma darsanayo soo cusbo badan ma ku daraa wax yar ayaan ku darayaa haddii aad doonaysid xawaajiyaal iyo waxyaabo kale waa ku darsan kartaa yacni laakiin ani xawaajiyaal ma ku daraayo soo sidaas bis ayaan u sameynayaa maasha Allah asxaabi waxaa rabaa just biyaha si ii soo gursato kadib waxaan ku dhahay ii qalasho qudaarta markaas baan ka diminaynaa insha Allah waqti badanna ma u baahno waa qudaartan oo caafimaad badan ayay leedahay maasha Allah asxaabi marka waa kana hadda qudaarteena diyaar inoo waaye waxaan sameynaa dabka ayaan ka diminayaa maasha Allah kadibna waxaan ku dhahay saxanka ayaan kusoo shubayaa maasha Allah asxaabi hadda waa kana saxanka ayaan kusoo shubay
kadib waxaan soo qaatay kalluunkii dusha ayaan ka saaray maasha allah asxaabay saa arkaysaan dhinaca ayaan kasoo saaray jab liin dhanaan maasha allah asxaabay jabkaas liinta ayaan kasoo saartay maasha allah asxaabay waa cunto caafimaad leh haddii aad doontid qada ka dhigo haddii aad doontid casho ka dhigo maasha allah asxaabay waa cunto healthy maasha allah haddii aad nagu cusub tahay oo fadlan subscribe haddii aad videoga ku cajab geliya like comment and share maasha allah asxaabay dhawaad ayaan leeyahay waan niiga mahad celinayaa sida quruxda badan oo iigu xirantiin mar walba iigu soo dirtiin fariimiina quruxda badane maasha allah asxaabay intaan videogiisa kale ku kulmi doono waxaan ii rajeynayaa farxad iyo caafimaad meel walba dunida dacaladeeda ka joogtaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu